السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa Axmed Maxamed Axmed Dictor Bana. isku soo noqod wanaagsan insha allahu tacaala. maanta waxaan ka hadlaynaa barnaamij cusub oo aan uga hadli doono. barnaamijka cusub waxaan hadda kadib insha allah diiradda ku saari doonaa cudurrada. insha allah maantana waxaan soo qaadanaynaa cudurkeena ugu horeeyey oo aan ka hadli doono insha allah. waxay noqon doontaa cudurka loo yaqaano kaduudiyaha ama kaduudiyowga, qof walba siduu u yaqaano. kaduudiyowga insha allah waxaan ka sheegi doonaa ilaa iyo dhowr qodob oo kala ilaa iyo 5 qodob. marka ugu horeysa inaan ka hadalno waxa uu yahay kaduudiye. laba inaan ka hadalno waxa taariikhda uu leeyahay kaduudiyaha. 3 talooyin caafimaad inaan ku siiyo oo aad ka faa'iidi doonto insha allahu tacaala. iyo 4 in oo waxyaalaha oo ka hortag ahaan waxyaalaha loo isticmaalo. mid ka shanaad waa astaamaha uu leeyahay kaduudiyaha naftiisa inaan ka hadalno insha allahu tacaala. haddaa barnaamijkeena uu sii gada karno insha allah sidaa hore ugu sheegnay waa barnaamij cusub oo aan uga hadli doono hadda kadib insha allahu tacaala, oona noqon doono barnaamij taxane ah cudurrada aan diiradda ku saari doono insha allahu tacaala. haddaa ka hadalno qodobkeena ugu horeeya maanta waxay noqon doontaa waa maxay kaduudiye ama kaduudiyow. sidaa ognahay kaduudiyowga waxaa keena virus. viruskaasna waxaa soo qaada kaneeco loo yaqaano cadis. kaneecadaas cadiska loo yaqaano ayaa soo qaada viruska sababa kaduudiyowga. viruska keena kaduudiyaha waxaa loo yaqaanaa chikungunya virus. chikungunya virus waa viruska keena cudurka loo yaqaano kaduudiyowga. chikungunya virus wuxuu khaasatan ku dhacaa RNA-da, khaasatan RNA-da oo leh enveloped RNA ayuu ku dhacaa viruskaas. viruskaas wuxuu ka sintasan yahay familiga loo yaqaano toga virus. khaasatan wuxuu kasii mid yahay qaybta loo yaqaano alpha virus ayuu kasii mid yahay. insha allah intaas waxaa ugu bixinaa tacriifka ama qeexida kaduudiyaha. haatan waxaa gelaynaa taariikhda uu leeyahay kaduudiyaha ama kaduudiyowga. taariikhda uu leeyahay kaduudiyaha, sidaa wada ognahay kaduudiyaha wuxuu markii ugu horeysay ka dilaacay dalka koonfurta Tanzania ayuu ka dilaacay. waa cudurka markii ugu horeysay wadanka laga helay uu ka dilaacay wuxuu ahaa wadanka koonfurta Tanzania sanadka markay ahayd 1952 cudurka loo yaqaano kaduudiyaha oo sababa viruska loo yaqaano chikungunya virus wuxuu markii ugu horeysay ka dilaacay dalka koonfurta Tanzania. magaca kaduudiyaha chikungunya virus wuxuu asal ahaan waa magac Swahili ah oo loo yaqaano chikungunya virus. magacaas marka loo bedelo English ahaan wuxuu noqonayaa carpwalking. Soomaaligiisna wuxuu noqonayaa qoloq u socod, macnaha qof qoloq u socod ayuu noqonayaa. intaas waxaa ugu baahnay taariikhda uu leeyahay kaduudiyaha. haatan waxaa gelaynaa meelaha kaduudiyaha laga helo. waxaa jira wadamo qaar laga helo kaduudiyaha iyo wadamo qaar aanan laga helin. haatan waxaan ka hadli doonaa wadamanka laga helo kaduudiyaha. sidaa wada ognahay kaduudiyaha waxaa laga helaa wadamada oo loo yaqaano wadamada kulaylaha, khaasatan kuwa loo yaqaano Caribbean-ka ayaa wadamankaas ayaa laga helaa, waana wadamanka kulaylaha. wadamada qaaradaha laga helo waxaa ka mid ah qaaradda Afrika. qaaradan Afrika waxaa laga helaa ilaa iyo wadamo kale ah. Soomaaliya way ka mid tahay wadamanka laga helo kaduudiyowga. sidoo kale waxaa ka mid ah wadanka loo yaqaano Kenya. sidoo kale waxaa laga helaa Djibouti. sidoo kale kaduudiyaha waxaa laga helaa Masar. sidoo kale kaduudiyaha waxaa laga helaa wadanka Burundi. sidoo kale kaduudiyaha waxaa laga helaa wadanka koonfurta Afrika. sidoo kale kaduudiyaha waxaa laga helaa Zimbabwe iyo Cameroon iyo Malawi. intaan wadan waxay ka tirsan tahay qaaradda Afrika, waana wadamanka laga helo cudurka loo yaqaano kaduudiyaha. haddaan wax kasii sheegno qaar ka mid ah wadamanka qaaradda Aasiya.
qaaradda aasiyana sidoo kale waxaa jira wadamo laga helo xuduudiyaha oo ka mid ah dalka indiya waxay ka mid tahay dalalka laga helo xuduudiyaha sidoo kale dalalka laga helo waxaa kasii mid ah bakistan iyadana sidoo kale way ka mid tahay sidoo kale waxaa jiro indonesia iyadana way ka mid tahay wadamanka laga helo iyo myanmar iyagana waxay ka mid yihiin wadamanka laga helo xuduudiyaha khaasatan ka tirsan qaaradda aasiya astaamaha cudurka xanuunka xuduudiyaha astaamaha xuduudiyaha waxaa jira cudurkan markay ku qaniinto waxay soo muuqdaan markay ku qaniinto kaneeco wada fayraskana waxaa soo sheegnay chikungunya fayraska kaneecada wada hadday ku qaniinto waxaa laga yaabaa inay ku dhacdo xuduudiyaha isla markii ay ku qaniintan isla markaas macnaa inay ku dhacdo macna waxaa jira cudurkan wuxuu leeyahay incubation periodkiisu wuxuu yahay 3 ilaa 7 maalmood kadib 3 ilaa 7 maalin kadib markay ku qaniinto kaneeco xambaarsan fayraskaas markay ku qaniinto 3 bari ilaa 7 bari kadib ay kugu soo baxay cudurka dhiigga bini'aadamkana waxaa laga helaa cudurkaas ilaa iyo 7 bari ilaa muddo 6 maalin ayaa laga helaa astaamaha caanka ku ah xuduudiyaha waxaa ka mid ah astaamihiisa gudagalna waxaa ka mid ah xumad aad u sarreysa qofka inuu dareemo iyo inuu kaloo dareemo kala-goosyada oo aad u xanuuna oo cudurkan caan ku yahay cudurkan wuxuu caan ku yahay qofka inuu aad iyo aad ugu dareemo in xubnaha kala-goosyada ay aad u xanuunaan kala-goosyada macnaha hadda sida waxaa tilmaam waxay ka mid tahay inta oo kale kala-gooska inuu ku xanuuno meeshaan sidaa ulaabmaysa inay ku xanuunto qoortaan wareega inay ku xanuunto macnaha meel walba jirkaaga oo wareega sameynayo oo kala-goos ah inay ku xanuunto ayuu aad iyo aad caan ugu yahay cudurkan iyo wuxuu kale caan ku yahay asigan sidoo kale madax xanuun aad u sareysa madax xanuunka aad u sareysa asina wuxuu ka mid yahay astaamaha xuduudiyaha iyo sidoo kale wuxuu ka mid ah astaamaha xuduudiyaha in ay bararaan adimada hoose macnaha lugaha in ay qofka ka bararaan iyagana waxay ka mid tahay astaamaha lagu barto xuduudiyaha iyo sidoo kale waxay ka mid tahay qofka in uu dareemo daal aad iyo aad u fara badan qofka in uu daalo hoolyar markuu sameey kadib in uu dareemo qof maanto dhan shaqeynayo oo kale oo howl badan qabanayo oo kale taasna waxay caan ku tahay xuduudiyaha iyo sidoo kale waxaa sii jiro qodob kale oo aad muhiim u ah sigana waa qofka inuu dareemo labolabo mantag inuu dareemo intuu xanuunsan yahay astaamahan oo dhan waxay astaamo u yihiin cudurka xuduudiyaha inta badan xuduudiyaha macnaha ma keeno dhimasho cudurkan badanaa ma loo dhinto ilaa qofkii waqtigiisa soo dhamaatay horta geerida inuu dhinto qofkan iyo inuu sii noolaado taas waxay ka timaadaa mar walba aan ognahay aanan yaqiinsannahay inay allah agtiis ka yimaado laakiin cudurkan macnaha badanaa looma dhinto macnaha cudur halis ah oo dhimasho oo keeni karo oo halis ah maanta maahan ilaaks waa cudur iska yar haddee waqtigaaga soo dhawaad cudurka celin karta male ama cudurkan looma dhinto asal ahaanba maaha haddii kuulaa maba dhimanaysid maaha looma dhinto macnaha waxaa ka wadnaa qofkan waa cudur aad u yar oo macnaha aad u fudud balse astaamihiisa oo sii darsada waxay keentaa qofka in uu ku imaado bukaanka in uu waxyeelo badan ay u geysato astaamihiisa oo sii bata oo sii darsada waxay u keenaysaa bukaankan in uu xaaladiisa sii xumaato sidoo kale cudurkan astaamihiisa waxaa qofka bini'aadamka jirkiisa wuxuu kusii jirayaa qofka markay waxaa lagu gartaa markay hal mar kugu dhacdo oo kale xuduudiyaha hal mar haday kugu dhacdo mar dambe inay soo laabato way adag tahay mana soo laabato dadka qaar xuduudiyaha only waxay ku dhacdaa hal mar oo keliya fast time oo keliya ay ka tahay dad way jiraan ay kusoo laabanayso waxa alla agtiisa ka yimaada taas mar walba waa yaqiinsana alla agtiisa ayay ka yimaada laakiin sida caadiga ah xuduudiyaha hal mar qofka hadduu ku dhaco mar labaad inay kusoo laabato way adag tahay sababtaa jirka waxaan soo galay waa virus sida hore u soo sheegnay viruskaas markuu soo galo jirka waa markii ugu horeysay uu soo galayo macnaha immune systemka difaaca jirka cudurkaas wuxuu yahay ma garanayo markay jirka soo gudubto kadib difaaca ayuu baabi'inayaa jirka ayuu toos u galaya markuu galo kadib waa sii faafayaa cudurkii meeshaas macnaha jirka miska sii difaaci kara cudurka sidaas ayuu kugu dhacaya muddada ay ku heynaysa waa cudurka kugu jiraayo intaas
muddada la sheegana oo cudurkan inta caadiga uu ku hayn karo xanuunkiisu waa ilaa iyo 7 maalmood ama isbuuc inuu ku hayo. isbuuc kadib waxaa la arkaa dadka badanaa sida la arkabo waa inuu isbuuc kadib aad ku heshid caafimaad. اسبوع كذب وحاجه dadka tusaalo kale dadka waaweyn oo kale iyo caruurta oo kale waxaa laga yaabaa ilaa iyo muddo bil ah inay hayso. ilaa dadka caadiga normalka sida dhalinyarada oo kale dadka caadiga sida caadiga waa cudurkan wuxuu ku dhacaa ilaa iyo 7 maalmood. haddaba soo laaban waxaan nahnay cudurkan markuu jirka soo gala kadib jirka ma yaqaano markuu ku dhaco oo caafimaadkiisa daawooyinkiisa alla ku caafiyo kadib marka labaad uu soo laaban doono fayraskan chikungunya fayraska la yiraahdo jirka wuu aqoonsanayaa. marka labaad markaad ka caafimaadid marka labaad uu soo laaban doono fayraskaas marka kaneecadu ku qaniinto jirka wuu aqoonsanaa inuu yahay fayraskan midkii marka hore soo weeraray oo markuu soo weeraray jirka wuu aqoonsanaya marka difaac ayuu galayaa. waa difaaca cudurkaas meesha jirka intuusan usoo gudbin koor meesha lagu baabi'inaya. ileen jirka wuu ogaaday cudurkan wuxuu yahay cudur inuu yahay oo virus yahay jirka wuu ogaaday halka marka hore uusan ogeyn. markaan jirka difaac ayuu galayaa wuu iska celinaya sidaas banaanka ayuu cudurka ugu dhacayo. waxaana sidoo kale wuxuu cudurkan aad iyo aad u daran yahay dadka caruurta yaryar iyo aad ay u daran iyo sidoo kale wuxuu aad ugu daran yahay dadka qaba chronic disease-ka cudurrada raaga dadka qaba ayagana aad iyo aad ayuu ugu daran yahay. inta badan dadka cudurkan qaba waxaa ku dhaca hal mar oo keliya taas aan soo sheegnay hal mar oo keliya ayuu ku dhacaya cudurkan. mar labaad inuu kugu soo laabdo way adag tahay. وإنتاس وحاول بحنا استعمها هي على سوريا. حتى كلنا فاكين قدر كان مفافا كذوديها بدنا وحا فافية كان على السلا وحا صوشي كان على كان تكذوديها إنه ها حدث كان على لو كان عادس أياك أنت فافي كذوديها قدر كان كذوديها فافي ديس وحا فافية كان على لو كان عادس وأنا كان على أصل بس أنت قدر كان أو بين هذا أو لو كان عادس كان على أصل جدك هذا السوق كان يتخبط خبط كذوديها أو بين كاس عايزين نقول كوخن أنت نقول لحظة أيا السوق تقلها. اوكي انتاس hadana waxaa gelina baaritaanka kadoodiyaha. marka la baarayo kadoodiyaha sida hadda soo sheegnay waxay jirka bini'aadamka ama dhiigga bini'aadamka ay ka muuqataa ilaa 7 beri oo keliya ay ka muuqataa. sidoo kale qofka dhakhtarka waxaa sidoo kale aad iyo aad muhiim u ah inuu qofka baarayo oo qabo markuu yimaado qofka kadoodiga cawanayo inuu aad iyo aad u baaro dhiiggiisa ama caafimaadkiisa inuu aad iyo aad u baaro. ilaan waxaa jirta cudurkan cudurro la astaamaha oo lagu qaldi karo. كذا وحاجر عذرا خار أو خلدي كرسيدا وحاكم عذرا مثل لو يخانا زيكا فيروس تنجو فايبركا أيجا وحي آدي سوتويهن إيش استعميهن وكذا مركب خفكا عفمات مرحنا عم تحتكا وإن آدي في جرنا هذا مكبارا يخفك عوانا كذا سيسن سو خلدمين كذا هي عذرا هذا الشيء intaas waxa uu gudbaynaa baaritaanka kadoodiyaha. insha allah haddana waxaa gelaynaa daaweynta kadoodiyaha. daaweynta kadoodiyaha markaan ka hadlayno kadoodiyaha daawo sax ah ma leeyahay? maya. jawaabteeda waxay noqonaysaa maya. kadoodiyaha ma lahan daawo sax ah oo lagu hortagi karo. tallaalna ma leeyahay? sidoo kale tallaalna ma lahan oo lagu hortagi karo. marka sidee looga hortagi karaa? insha allah waxaan ku siin doonaa ilaa iyo 4 talo haddaan qaadid insha allah aan rajeynaa in aan caafimaad ku heli doontid. midka ugu horeysa waa naso. qofka kadoodiyaha qabo waa in uu haystaa uu heli karaa nasiino. macnaha shaqada hadduu lahaa qofkaas waxaa aad iyo aad u habboon inuu nasto shaqadiisa uu hakiyo. hadduu ahaa qof shaqeyn ama arday ah oo badanaa wax howl badan qabanayo soconayo inta ka baxayo macnaha waa inuu nastaa intuu cudurkan ku hayo howl dhan waa inaa iska dhaaftaa waad iska nasataa. mid kale waa inuu qofkan kadoodiyaha ku dhaco waa inuu cabaa cabitaan badan iyo dareer. waa inuu cabaa biyo badan ama dareero kale. dareero kale marka waxaan ka wadaa cabitaan kale caanaha iyo waxyaalahaas oo kale inuu cabo oo aad iyo aad u badan waliba biyaha ama wax walba oo dareero ah waa inuu qofka badsadaa.
midka saddexaad oo ah qaado xanuun baabi'iya sida Paracetamol-ka macnaha daawada ma ahan oo kaduubiyaha balse waxa waaye paracetamolka inuu kuu qabanaya oo astaamaha markaa kasoo sheekeynayn waxaa ka mid ahayd in uu qofka kaduubiyaha qabo madax xanuun aad u saraysa inuu dareemo iyo xumad aad u saraysa marka si aad madax xanuunkaas iyo xumadaas aad iskaga jebisid waxaa u baahan tahay inaad isticmaashid paracetamolkana waa xanuun baabi'iya haddaad isku sii dhaaftid oo aad ahayd daawo ma qaadanayo sida soomaalida badan ay dhahaan kaduubiyaha daawo looma qaato iyo waxyaalahaas qalbid malaysdura kaas macnaha waa taas ama xumadaada hadday zaid u sii gacdo ama qandhadaad ay sii zaa'ido waxaa laga yaabaa jidkaaga xubno qaar oo muhiim ku ah inay waxyeelo soo gaaraan waxaan ugu muhiimsan maskaxda oo kale qandhada badan iyo waxyaalahaas waxay saameyn ay ku yeelan kartaa haddaad ahayd kaduubiya daawo iyo waxaas looma qaato wax aan qaadanayo maleh waxaa laga yaabaa inaad dhibaato isku sababtid waxaan ku sinaya talo ah haddaa qandho aad u saraysa aad ku darin kaduubiyaha fadlan qaado paracetamol si aad xumadaada iskaga jebisid aanan dhibaato iyo problem isku ridin midda kale oo ah ha qaadan daawooyinka asbariinka isku qaadanin iyo daawooyinka loo yaqaano non-steroidal anti-inflammatory drugs ayaga sidoo kale ha isku qaadanin daawooyinkaas waxaa ka mid ah daawooyinkaas ha isku qaadanin ayagoo dhanba noocaas oo loo soo gaabiya NSAIDs waa magaca abbreviationka waa non-steroidal anti-inflammatory drugs daawooyinkaas fadlan ha isku qaadanin haddaa qabto kaduubiya إن شاء الله تعالى عشر كلمات برنامج تاني ماشان يا كسو جويننا إن كستو أنت على إن كسير إن شاء الله أنا كسير ما دام أجعل وسوق جوين فيديو وسيوسن كسير إن شاء الله ماشان يا كسي جويننا إن شاء الله تعالى خير ولن مع السلامة